السلام عليكم kusoo dhawaada kanaalka Cabdicasiis Boardle mowduuceena maantana waxaan kaga hadli doonaa adeegyo wax lagu basaaso oo gurigaaga dhex yaala laakiin laga yaabo inaanad ku baraarugsanayn adeegyadan waxaa ka mid ah telefishinka ayaa ka mid ah tiftifka ama jaajuuska ugu weyn waayo waxa uu duubayaa cadeymo ku saabsan telefishinada aad jeceshahay inaad daawato waqtiga aad jeceshahay inaad daawato xitaa waxaa jira USB ku xidhan madaxa oo isagana xareynaya wax allaala wixii loo baahdo ee macluumaad ah taasi oo si fudud lagu ogaan karo wax walba oo kugu saabsan receiverka ama cable-ka kuugu jira waxaa sidoo kale uu qayb ka yahay waxyaabaha ku basaasaya ee gurigaaga ku yaala qalabka waxa uu si toos ah ugu xidhan yahay dayax gacmeedka waxaana si fudud loogala socon karaa waxa aad daawato iyo waqtiyada aad daawato iyo sidoo kale macluumaad kugu saabsan oo shirkadda aad u gudbisay modemka ama ISP-ga internetka waxa uu qayb ka yahay basaasiinta waxa qofka internetka leh si fudud loo ogaan karaa qofka uu yahay waayo shirkadda aad internetka ka soo xidhatay waxa ay og tahay wax walba oo kugu saabsan bogagga aad jeceshahay inaad booqato goorta aad internetka ku jirto dadka aad la hadlayso iyo wax walba marka shirkadaha internetku waa basaasiin dadban kaamirada webka waa adeeg kale oo guriga ku yaala in uu ku basaaso ha u malayn in kaamirada ay aragto oo keliya qofka aad u daartay waxaa kaloo arkaya shirkadda iska leh adeega aad isticmaalayso waana la arki karaa haddii loo baahdo waxaa dhacda in shirkado badan laga codsado macluumaad qof ku saabsan shirkado diida way jiraan oo ilaaliyo nolosha khaaska ah ee dadka halka shirkado kale ay bixiyaan telefoonada guriga yaala waxaa loo yaqaanaa landline waa astaan kale oo waliba caan ah oo dadka lagu basaaso waxaa adeegsada dawlado badan si ay ula socdaan dhaqdhaqaaqa qofka cidda uu la hadlayo iyo dhammaan sirta qofka ku saabsan arrintan marar hore ayaa ay bilaabmatay cid walbana waa ay og tahay ama ay ku baraarugsan tahay telefoonka gacanta mobilku waa adeeg kale oo isna dadka lagu basaaso waxaa xitaa loo isticmaalaa dilka meelaha fogfog waxaa hubaal ah in arrinkaas marar hore aad maqasheen mobilka waxaa si fudud loo ogaan karaa qofka meesha uu joogo iyo waxa uu qabto dawlado badan ayaa arrinkaas ku caanbaxay in ay dadka ka ogaadaan mobilkooda macluumaad badan oo ku saabsan waxaa kaloo jira adeegyo kale oo guriga noo yaala balse basaasiin ah oo cadowga uu ku shaqaysto sida adeegyada caafimaadka qaarkood adeegyo loo isticmaalo madadaalo adeegyo loo isticmaalo jikada ama cunto karinta iyo kuwo kale oo ka mid ah waxyaabaha ay soo kordhisay tiknoolajiyadda balse dadka lagu basaaso